waxaan saaxiibayaal ku soo dhawaada warka habeenimo ee warbaahinta dhasheeg qodobada warka aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona xiisada siyaasadeed ee u dhaxaysa koonfur galbeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gaartay heer xasaasi ah magaalada Nairobi ayaa laga furay xarun cusub oo ku shaqeyn doonto hay'adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka Soomaaliyeed ee NIRA gudoomiye ku-xigeenka xisbiga ka ayaa si kulul u cambaareeyay xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro Iran ayaa weerar ku qaaday maraakiib shidaal oo marayay marin biyoodka Hormuz Xuutiyiinta ayaa si rasmi ah ugu biiraya dagaalka taas oo sii kordhinaysa xiisada gobolka qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku soo qaadan doonaa hadduu eebweyne ogolaado warkayaga caawa aan ku bilaabay xiisad siyaasadeed ka dhex aloosan koonfur galbeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maraya heer xasaasi ah xilli ay soo tarayaan hadallo kulul iyo dhaqaaqyo ciidan oo saameyn guud ku yeelan kara amniga guud ee deegaanadaas jawiga siyaasadeed ee gobolka ayaa u muuqda mid si cakirmaya iyadoo dhinacyadu ay isku marinayaan fariimo adag mararka qaarna u eg digniin toos ah taas oo sare u qaadaysa cabsi laga qabo in xaaladdu isu bedesho mid amni darro ah Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan ayaa dhankiisa u muuqda mid si buuxda ugu diyaar garoobaya doorasho uu isagu qabsado inkastoo ay hareereeyeen muran iyo su'aalo ku saabsan hanaanka loo marayo waqtigeeda iyo cidda ka qayb galaysa intaba dhanka kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa iyaduna muujinaysa feejignaan iyo diyaar garow siyaasadeed iyadoo ay u muuqato inaysan si sahlan u aqbali doonin heshiis kasta oo u muuqda in doorasho ay deegaanada uga dhici karto maadaama lagu heshiiyey in dalku doorasho qof iyo cod u aado waxa la dareemayaa in labada dhinac ay ku socdaan loolan awood oo si toos ah u saameyn kara mustaqbalka maamulka iyo xiriirka ka dhaxeeya dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe xaaladan ayaa si murugsan u muuqanaysa maadaama ay jiraan dhibaatooyin hore u jiray oo aan wali xal loo helin sida khilaafka siyaasadeed iyo kalsooni darro ka dhex jirtay madaxda iyo cabashooyin bulshada ah oo la xiriiray adeegyo amni iyo horumar oo kala duwan oo maamulku uu xaq u lahaa arrimaha isbiirsaday ayaa ka dhigan xaaladan mid u baahan feejignaan dheeraad ah iyo in xaalad degdeg ah oo laga gaaro ka hortag inta aysan xaaladdu sii xumaanin wararka ku saabsan diyaar garowga amni iyo dhaqdhaqaaqi ciidan ayaa iyaguna sii kordhaya wararka bulshada inkastoo oo si rasmi ah loo xaqiijinin heerka uu gaarsiisan yahay dadka deegaanka iyo falanqeeyaasha arrimaha siyaasaddu waxa ay ka digayaan in hadallada kulul iyo tillaabooyinka aan la isku raacsanayn ay keeni karaan isku dhac aan loo baahnayn haddii aan la helin wadahadal iyo is-afgarad rasmi ah xarunta safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi ayaa lagu qabtay munaasabad kooban oo muhiim ah taas oo lagu daafurayay xafiis cusub oo yeelanayso hay'adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka Soomaaliyeed ee NIRA talaabadan oo qayb ka ah dadaalada lagu ballaarinayo adeegyada dawladeed ee la fulinayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dibadda munaasabadan waxaa si wadajir ah u hogaaminayay Jibriil Ibraahim Cabdulle safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya iyo Cabdiweli Cali Cabdulle maareeyaha hay'adda NIRA iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen diblomaasiyiin safaaradda iyo mas'uuliyiin kale furitaanka xafiiskan cusub ayaa astaan u ah horumarin la taaban karo oo laga sameynayo adeegyada aqoonsiga qaranka gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Kenya oo si fudud u heli kara dukumentiyada muhiimka ah ee aqoonsiga waxa la tilmaamay in xafiiskan uu ka mid yahay qorshe ballaaran oo lagu gaarsiinayo adeegyada NIRA meelo badan oo caalamka ka mid ah iyada oo safaaraddan ay noqonayso tii soddonaad ee laga hirgeliyo xafiis noocan oo kale ah maareeyaha hay'adda Cabdiweli Cali Cabdulle ayaa sheegay in la ballaarinayo adeegyadan ay tahay mid ka jawaabaysa baahida sii kordhaysa ee muwaadiniinta isla markaasna ay muhiim tahay dhismaha nidaam aqoonsi oo casri ah oo dabcan la isku xiro gudaha iyo dibadda dalka furitaanka xafiiska NIRA ee Nairobi ayaa sidoo kale muujinaya dadaalka dawladda Soomaaliya ee ku aadan casriyeynta adeegyada iyo xoojinta xiriirka ay la leedahay muwaadiniinteeda dibadda taas oo dabcan qayb ka ah istiraatiijiyadda ballaaran ee lagu dhisayo nidaam dawladeed oo hufan la iskuna halayn karo isla markaasna u siman adeega dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay dunida daafaheeda ka joogaan waxa si kulul u cambaareeyay xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro
cabdikariin maxamed xaaji cali oo ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kaas oo si adag u dhaliilay waxqabadka xukuumadda isagoo su'aal geliyay awoodda ay u leedahay xalinta khilaafyada iyo colaadda ka jirta deegaanada qaar. waxa uu si gaara u iftiimiyey khilaafka muddada badan ka taagnaa magaalada lagu magacaabo Baligubadle kaas oo u dhaxeeyay madaxda fulinta ee dawladda xogayaha fulinta. khilaafkaas sida uu sheegay wuxuu sababay in ay hakad galaan adeegyada muhiimka ee bulshada loo hayay isla markaasna uu wiiqay hanaanka maamul iyo kalsooni ee shacabka. waxa uu tilmaamay in xaaladaasi ay tusaale cad u tahay fashilka xukuumadda ee dhanka maareynta khilaafyada gudaha. isagoo oona hadalkiisii sii wata ayuu su'aal kale ka keenay sida suurtagalka u noqon karto in xukuumaddu xal waara ka gaarto colaadda ka jirta deegaanada Saleel, Waqdariya iyo Shidan oo haddii ay ku guuldaraystaan arrintan ay noqon karto fashil kale oo soo wajaha. dhaliisha uu jeediyay cabdikariin maxamed xaaji cali ayaa sidoo kale taabanaysa saamaynta ay arrimaha ku leeyihiin bulshada gaar ahaan dhinaca ganacsiga iyo amniga, isagoo oo muujiyay walaaca ku saabsan in xaaladan ay sii xumaan karto haddii aan xal rasmi ah loo helin maalmaha soo socda. waxa uu si dadban u muujiyay in shacabka laga yaabo inay lumiyaan kalsoonida ay ku qabaan xukuumadda haddii aysan degdeg uga jawaabin caqabadaha hadda taagan. ugu dambeynna hadalkan siyaasadeed ayaa ku soo beegmaya xilli ay jiraan cadaadisyo isa soo tarayay oo ku wajahan xukuumadda taasoo la xiriira waxqabadka gudaha iyo sida ay uga falceliso xaaladda cakiran. waxaa muuqata in doodaha ku saabsan awoodda maamulka iyo xalinta khilaafyada ay sii xoogaysanayaan. wararka ka imanaya marinbiyoodka istiraatiijiga ah ee Hormuz ayaa muujinaya xaaladda sii kululaanaysa kadib markii la sheegay in Iiraan ay weerartay markab marayay halkaas kaas oo watay calanka Marshall. dhacdadan ayaa si degdeg ah u kicisay walaac caalami ah maadaama marinbiyoodka uu yahay halbowlaha ugu muhiimsan ee dhoofinta shidaalka adduunka, isla markaana ay wax kasta oo khalkhal gelinaya ay si toos ah u saameynayaan dhaqaalaha iyo suuqyada caalamiga ah. isla markaasna xaaladan gobolka ay sii cakirmayso iyadoo oo Xuutiyiintu ay ka dagaalamayaan Yemen oo sheegay inay u diyaar garoobayaan dagaalka, isla markaasna ay muujinayaan diyaar garoow cusub oo dib ugu bilaabaya weerarada ay ku hayeen maraakiibta iyaguna marinadaas isticmaala. kooxdan ayaa horey u carqaladaysay isu socodka ganacsiga intii uu socday dagaalka Gaza, iyagoo sababay jahwareer ballaaran oo ku yimid maraakiibta iyo dabcan sahayda caalamiga ah ee isticmaalaysay marinadan. hadal ka soo baxay hogaamiyaha Xuutida oo la wadaagay wakaaladaha waaweyn ee caalamka ayaa muujinayay inay mar kale diyaar u yihiin inay adeegsadaan marinbiyoodka muhiimka ah, taas oo muujinaysa taageerada ay u hayaan Taran. haddii qorshaha uu dhaqan galo bartilmaameed kale oo halis ah waxa uu noqon karaa baabul mandab